magaalada muqdisho waxaa labadii cisho ee lasoo dhaafay ay shirar uga socdeen guddiga diyaarinta shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka. guddigan oo ka kala socda dhinacyada shanta maamul goboleed gobolka banaadir iyo dowladda federaalka ayaa ujeedkoodu yahay diyaarinta hanaanka qabashada shirka iyo doorashada dalka. guddiga farsamada iyo waxqabadkooda ayay Sahre Cabdi Axmed oo Washington joogta waxay ka wareysatay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo. aad iyo aad baa u mahadsan tahay. guddiga diyaarinta shirka wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed waxa uu hawshiisa rasmiya maalintii shalayto waxay ka kala yimaadeen dhammaan dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu hadda qabanqaabinaya shirka. waxaana la filayaa in ay maaragtay u diyaariyaan shirka 20 bisha la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho oo ay kasoo wada qayb galaan dowlad goboleedyada dalka, dowladda federaalka Soomaaliya, si looga wada hadlo oo loo dhamaystiro arrimihii shirka la xiriiray 17 Sebtembar iyo dhamaystirka doorashooyinka islamarkaana dalku uu aado doorasho. marka guddigaas ayaa maaragtay howlahoodii caadi u bilaabay. labadii maalmood u dambeeyayna shaqo xoog leh qabanayeen oo ah diyaarinta iyo soo dhaweynta wafuudda iyo dad meeshii ay degi lahaayeen iyo dhammaan macluumaadka kale ee la xiriira qabanqaabada shirka. waayahay maamul goboleedyadoo dhan xubnahooda ma keeneen guud ahaana marka la isku daro guddigan waa imise tiradooda? dhammaan guddigan waa guddi farsamo oo farsamo maaragtay ka shaqaynaya. dhammaan dowlad goboleedyada oo dhanna dad bay soo dirsadeen oo halkan u jooga oo maaragtay shaqada qabanaya oo iyagu ay soo magacaabeen. waana maaragtay guud ahaan shanta maaragtay dowlad goboleed ee Soomaaliya iyo maaragtay ama shanta dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir lixdooduba way soo direen. sidoo kalena xafiiska ra-iisul wasaaraha oo isagu hadda ka shaqaynaya hawshan ayaa isna qayb ka ah. marka waxaa laga wada hadlayaa farsamo ahaan sidii uun madaxdaas loo qaabili lahaa, u imaan lahaayeen, shirku u bilaaban lahaa, waxyaabaha asaasiyaadka ee loo baahan dadkuna maaragtay ay kalsooni badan ay jirto. marka in laga sii wada hadlo waxyaabaha keeni kara xitaa in shirkan uu sidii hore maaragtay waddooyinkii hore maro oo uu ku dhammaado guuldaro. marka in waxaasoo dhan laga fogaado ma dhici jirin in sidan oo kale isugu yimaadaan, lakiin hadda waxaa la rabaa wax walba inay waddadii wanaagsaneyd ay maraan. waa hagaag. waktigu wuu yar yahay, xasaasiyadna waa laga yaabi karaa inay dhici karto ama ay jiri karto maadaama dhinacyo siyaasadeed oo isdiidiidan qaarkood la isu soo jiijiidayo. marka shaqada ugu horeysa ee qabanayaan guddiga muxuu noqonayaa? waxyaabaha horta qorshaysan waxa weeye guddigan ay qabanayaan shaqadooda waxay tahay un keliya inay shirkaa diyaariyaan, laakiin waxaa la rajaynaa madaxdu maalinta qaarkood arbacada inayba soo bilowdaan, maalinta khamiista ah gelinka horena ay soo dhamaystirmaan oo shirkaa si rasmi a u furmo maalinta 20 ee khamiista haddii eebba idmo. shirka maaragtay ugu horeeya ilaa hadda qorshihiisu sida hadda guddiga weli ma dhamaystirna, laakiin waxaa la filayaa un in ra-iisul wasaaruhu uu maaragtay shirkaas la yeesho goboleedyada oo ay weeran maalmo ama laba tan ay ka wada hadlaan shirka furitaankiisa iyo loo baahan yahay. markaa kadibna la iclaamiyo maalin shirkaas si rasmi u furmi doono oo dadka o dhan Soomaalida ay kasoo wada qayb geli doonto. ururada bulshada rayidka iyo maaragtay mas-uuliyiinta oo dhan dadku kala duwan Soomaalida ay kasoo qayb geli doonaan, idaacaduhu ay live noqon doonaan, laga hadli doono dhammaan dadka o dhanna ay maaragtay kala duwan la hadli doono oo shirkii si rasmi u furmi doono. wixii ka dambeeyana waxay farsamo ahaan laga wada hadli doonaa sidii shirkaa loo dhamaystiri lahaa. intuu socon doona ma naqan, laakiin waxaan rajaynaynaa in maalmaha un la qorsheeyey iyo sida jadwalku yahay la raaci doono. dhinacyada oo dhanna marka ay muujiyaan mas-uuliyad maadaama Soomaaliya markan ay diyaar u tahay, dadkuna ay doonayaan in dalku doorasho ay ka dhacdo. kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay Sahre Cabdi Axmed.